gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariim Maxamed Axmed oo maanta safar shaqo ku soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu iga waramay guryo loo dhisi doono dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan xaafadda Hayayaaba ee Koonfur Galbeed ee magaalada Boorama kuwaas oo maanta isaga iyo hay'adda uu hogaaminaya ay u dhagax dhigeen 50 guri oo loo dhisi doono dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan xaafadaasi. safarkayga wuxuu daaranaa waxaan wada soconay hay'ado UNHCR iyo hay'adda NRC 50 guri oo dadka kaamka barakacayaasha Hayayaaba laga dhisayo loo dhisayo ayaanu u nimay dhagax dhigoodii iyo intii loo bilaabo intaasaan u nimay maanta dadku ma qaxoonti barakacayaal baa leeyahay waa dadka reer Soomaaliland ee kaamka degan imanka ayaa loo dhisayaa dhulka ay degan yihiin iyagana iskale ma dad meel kale laga keenayo inta imika degan. sidoo kale gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay dadka qaxootiga ah ee muddooyinkii u dambeeyay ku soo qulqulayay magaalada Boorama kuwaas oo culayskooda dareemeen shacbiga ku dhaqan magaalada Boorama waxaana uu dadkaasi ku tilmaamay dad sharci darro ku soo galay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. gudoomiyaha oo ka hadlaya arintani ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa dadkaasi waa laba nooc dad waa dad annaga nagu diiwaan gashan magangelyo doon oo aan badnayn 130 qof meelahaas ay ahay ma filaya waqti hore aan diiwaan gelinay wax ka dambeeyna ma aan diiwaan gelin dadkaasi waa socota ayaa la yiraahdaa waa dad wadanka sharci darro ku soo galay waxaana mas'uuliyadda leh oo la weydiinayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidanka migration-ka iyo ciidanka migration ama socdaalka oo wasaaradda ka tirsan ayaa la weydiin doonaa wixii aan ahayn dadkaas annaga noo diiwaan gashanay 130 ka waxa kale annaga shaqadeeda way ka baxsan tahay dadku waxa loo baahan yahay inay kala ogaadaan laamaha dawladdu mandate-kooda iyo shaqooyinka ay u kala xil saaray inay kala bartaan baa loo baahan yahay marka way garan lahayn cidda mas'uuliyadda leh. geesta kale isagoo hadalkiisa sii wata Cabdikariim Maxamed Axmed gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay kelmad uu adeegsaday xildhibaan Maxamed Habiib oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay wax ka weydiiyay shaqo maalmeedkiisa hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha. waan arkay bariyahanba bulshadu soo uga hadlayso iyo sida ay u qaada dhigayso iyo sida uu fahmi leedahay waxaan soo oran karaa waa arintaas aniga waxay soo saartay oo la dareemay heerka dadkeenu ka taagan yahay luqadda Carabeed ama luqadii diinteena heerka dadku ka taagan yahay ay taasi sheegtay waana wax soo baxay luqadii diinteena quraankeena xadiisteena shariicadeena ku qornayd ama Ilaahay ku soo dejiyay in dadku heerka ka taagnaado kelmadu waa kelmad Carabi ah dadka intii garanaysanada way garatay inta kalena habaaraan markay baaraan bay fahmayaan macnaheeda qofkuna hadduu shay garan waayo baarista aqoon baa uu korodhaa marka habaaraan way helayaan. Sikariya Cabdi Shafaar Sikariya Saxane telefishinka caalamiga ee Horyal TV magaalada Boorama.